بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوع إخوضي تلمامين وكوبان بينه إن شاء الله وحنبضنا إنك أردونا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث كنت الماما يا قفك بن آدم كاه ماشى الشرية خير بك قنتمان وقلبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay jidhka waxaa ku jira cad ama waslad haddii ay hagaagtana jidhku uu hagaagayo haddii ay xumaatana jidhku uu xumaanayo waana qalbiga buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qalbiga aynu naqaano xanuunada ku dhaca badh aadanaha daweeya oo qofkii wadna xanuun ku dhaco waxaynu dhahnaa dhakhtarka u tag dhakhtarkaa markaa u daweeya. laakiin waxaa jira xanuunno ka adag kuwa dhakhaatiirtu daweyso oo qur-aanka iyo xadiidkuba ay tilmaamayaan inay qalbiga ku dhacaan dadka inta iska daweysaana ay yar yihiin. xanuunada kale ee qalbiga ama wadnaha ku dhaca markiiba dhakhtarkaa loola cararaa qofka waa la daweeyaa. laakiin xanuunadan sharcigu inoo tilmaamayo waxaa yar dadkaba inta ku tanabuhda ama daymoota ee garata inuu xanuunkaa qabo ee raba inuu iska daweeyo. waa xanuun runtii ama waa xanuunno dhib adduuniya mid aakhiraba leh. waa xanuunka uu tilmaamayo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. nebi ibraahim rabbi buu barya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ilaah hay hoojinin oo hay dullaynin maalinta dadka la soo saaro, maalinta aan xoolo iyo caruur iyo wixii adduunka la tirsan jiray lagu tiirsanaan jiray aanay waxba taraynin. yacnii bini aadamku adduunka inta badan maalkiisa iyo wiilashiisa buu ku tiirsada uu dareemaa inay labaduba wax ka dhicin kara yihiin. nebi ibraahim wuxuu leeya ilaahu maalinta aan wiil iyo walaal iyo xoolatoona wax taraynin ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ula yimaada alle mooyaane qalbi caafimaad qaba, qalbi nabad qaba. saliim mufasiriinta badh ayaa waxay dhahaan saliimun min ashirk, gaalnimo ka caafimaad qaba. mufasiriinta badh baa idhaahdaa saliimun min ashak, shaki ka caafimaad qaba oo yaqiinsan rabbi iyo la kulankii janno iyo naar iyo jiritaankeed nebi maxamed inuu xaq yahay yaqiintaasi haysta. mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alghilli walaxaqaad, uurxumo iyo xiqdi ka caafimaad qaba. mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alkibr, isla weyni laa yadkhulu اljanna man kaana fii qalbihi midqaalu darati min kibr, isla weyni ka nabad qaba. mufasiriinta badh baa yidhaahda saliim luqada carbeed waxay ka mid tahay erayada cagsigaba loo adeegsado tafaa'ulan bimacnaa ladiiq. oo waa kii saxaabigii abi saciid alkhudri iyo saxaabadii la socotay markii ay soo mareen reerka ee la marti soori waayey ee dabeetana odaygii u weynaa bahalku qaniinay
markay u yimaadeen waxay dhahdeen ina sayidu hada alwaadi saliim bay yidhaahdeen ina sayidu hada alwaadi saliim bimacnaa ladiiq tafaa'ulan waa sida indhoolaa basiirka loo yidhaahdo basiirku waa mid indhaqaba macnaheedu saliimka markaa waxaa looga jeedaba man ata allaha biqalbin saliim ay ladiiq min makhaafat اllahi caza wajal وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مفسرين تبربايد هذا السليم أي لم يصب بالقسوة ثم قست قلوبهم ولدي الله تلمامي مفسرين تبربايد هذا هو السليم من الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون mufasiriinta badh baa yidhaahda erayo ku dhodhow erayadaasi laakiin markaynu soo duuduubno nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ilaahay ula yimaado qalbi caafimaad qaba mooyaane wixii rabbi diidoo dhan ka caafimaad qaba gaalnimo iyo wixii ka farcama ka caafimaad qaba haddaba aakhiro qalbigaagu intuu saliim iyo caafimaad qabay ku xidhan tahay qurbiga iyo ilaahay intaad u dhowaanayso ama intaad khayr helayso ama intaad janno helayso ama intaad naar iyo ka fogaanayso waxeeda haddaba qalbigu saliimnimadiisa iyo caafimaad qabkiisu aakhirana waa waxa wax tara adduunkana waa waxa wax tara waxay culimmadu idhaha waa mowdicu nadri illaahi subxaanahu wa tacaala aadamaha rabbi ma eego maxaa gacantiisa xoolo ku jira muxuu magac iyo maamuus leeyahay quruxdiisu waa sidee intuu dherer iyo dhumuc leeyay intuu power haysta ayaa sulta iyo awood ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxba kama nihin yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniy waxba kama nihin laakiin nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yandur ilaa quluubikum wa ilaa acmaalikum ilaahay subxaanaه wa tacaala ma daymoodo ma dheehdo ma eego ma fiiriyo muuqaalkiinna iyo hantida haysataan inta ay leeg tahay ilaahay agtiisa waxba kama aha taas waxa ilaahay agtiisa wax ka ahi waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa quluubtiinna ku jira iyo acmaashiinna sida daraaddeed buu xadiidkii nebigu wuxuu lahaa attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna intuu laabtiisa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer ayuu wuxuu yidhi alla ka cabsigu halkuu ku jira alla ka cabsigu halkuu ku jira idan qalbiga iyo caafimaad qabkiisa ama bukaankiisa ama dhimashadiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qofka muslimkii u baahan yahay inuu in badan eego war ma kuwa qalbigoodu dhintaad ka midtay mise kuwuu bukaabaad ka midtay mise kuwuu caafimaad qaba waa 3 darajo oo kala durugsan qalbigu hadduu caafimaad qabo xataa adduunkuu wax taraa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam beder dad muslimiina la socday safka gaaladaoo kuwii la qabqabtay ku jiray dabeetana markii muslimiinta gaalada laga qaadayay fidyada madax furasho markii laga qaadayay ayay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo de annagu muslimiin baanu ne maxaaba madax furasho nalooga qaaday nimankani waanu soo qasbeenuno dee higilku maanu soo raacnay annagu awalba muslim baanu ahayn ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh yaa ayuha الnabiyu qul liman fii aydiikum min alasra in yaclam illaahu fii quluubikum khayra yu'tikum khayra mima ukhida minkum wayakfir lakum nebi allow waxaad ku tidhaahdaa qul liman fii aydiikum min alasra maxaabistana haysataan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayra ilaahay qalbiyadiinna hadduu khayr ku og yahay
yu'tikum khayra mima ukhida minkum adduunka yara laydinka qaaday madax fusho laydinka qaaday mid ka fiican buu idin siin dembigiinnana wuu dhaafi yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in yaclam illaahu fii quluubikum khayra meesha ilaahay eegaya in khayr ku jiro iyo inaanu ku jirin waa quluubta bal ee maka markii la furanayey ee muslimiinta maka loo furay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku cileeyey facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba yowma alfatxi haddaad xudaybiya tidhaahdiyo haddaad maka tidhaahda furashadeedba ilaahay wuxuu leeyay facalima maa fii quluubihim rabbi wuxuu ogaaday waxa qalbiyadooda ku jira sidaa awgeed baa fabisababi dalika anzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ayuha alaxiba qalbigu marka waa weel wax ku jiraan weelkaasi iimaan waa buuxin karaa iyo waxa iimaanka ku hareeraysani gaalnimo way buuxin kartaa iyo waxa ku hareeraysan sida awgeed inuu maxalka yahay weelka inuu yahay wax lagu shubaa rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi اlkufr min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum mu'miniintana ilaahay muxuu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim اliimaan idan aslu اliimaan meesha uu degaa iyo aslu اlkufri meeshuu degaana waa qalbiga iyo nawciyaadkiisa oo waxa iimaanka dhabta a tilmaama inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun haddaba ayuha alaxiba caafimaad qabka qalbiga waxaa ku xidhan salaax ama wanaagga adduuniya aakhiraba fasaadka uu qalbigu fasaadana waxaa ku xidhan aakhiriya adduunba fasaadkeeda waayo qalbiga waxyaabaha fasaadiya gaalnima ka mida riyaa iyo sumca iyo istusbaa ka mida maxaanku idhaahdaye ismaqashiisbaa ka mida kibir iyo isla weynibaa ka mida cujbibaa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina waa bulsho aan jiri karin sida awgeed innagu markaa wadna xanuun uu kugu dhaco intaa taahdaabaa tol iyo qaraababa laysugu kaa tegayaa dhakhtar wadneed sidii lagu gaadhsiin lahaa laakiin amraadda dadku la wada il daran yahay cabashadeeduna waa yartay oo cidba kama cabato caawimaaddeedu way yartay oo cidba iskuma caawiso waxaynu u baahanay markaa qalbigu markuu bukoodo marad uu ku dhaco waxay culammadu yidhahdeen laba fasaad baa ku dhaca fasaadun fi tasawur iyo fasaadun fi liraada bay yidhaahdaan waxaa ku dhaca shubha gasho oo xaqu arki waaya ama hayr alxaqi baabu xaqaba u arka waa fasaad fi tasawur bay yidhaahdaan waxaa kaloo ku dhaca bay yidhahdeen fasaadun fi liraada oo xaqa iyo waxa waxtarayuu nacaa wuxuu jeclaadaa baatilka iyo inta lagu lumayo idan waa fasaad fi liraada ilaahay labada xanuunba wuu tilmaamay waa labada xanuun ee ugu waaweyn ee aadanaha ku dhaca ima shaku wاlrayba wاlkufru biاllaah ama waa marad الshubuhaat waxay idhaahdaan ama marad shahwaat marad shubuhaat fii quluubihim marad waa ka ilaahay ku tilmaamaya munaafiqiinta maradu shahwaatkana fayaطmac aladii fii qalbihi maradun baa ilaahay tilmaamay fii suurati اlaxzaab haddaba qalbiga saliimka ahi waa qalbiga towxiidku buuxiyo iyo waxa towxiidka ku lamaani qalbiga meydka ahina waa qalbiga kufrigu buuxiyo
iyo wuxuu jiidanaya qalbi baa jira labada u dhaxeeya oo inta badan quraanku tusaalo uga dhigo qalbiga munaafiqiinta waa maradku xad buu gaarsiin karaa may-uusun canhu uu yahay kuwa laga quustay uu yahay maradku xad buu joogi karaa kuwa markiiba si fudud loo daweyn karo ee soo noqon kara uu yahay ilaa isagoo munaafiqiinta ka warramaya buu yidhi fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada fii suurati albaqara qaybta koowaad ee suuradda tan saddexdaa qalbi baa ilaahay ka warramaya qole mu'miniina 5 aayadood meelahaasaa lagu sifaynaya qole kaafiriina 2 aayadood baa lagu sifaynaya 13 aayadoodna quluubta bugtaa lagu sifaynaya 13 aayadood baa ilaahay wuxuu ku sifaynaya quluubta bugta ilaahay wuxuu leeyahay liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnatan liladiina fii quluubihim marad waalqaasiyati quluubuhum shayطaanka iyo waxyigiisu shayطaanku wuu waxyoodaa yuuse u waxyoodaa ilaa awliyaa'ih inta la socotaa buu waxyoodaa ama toosba ha ugu sheego jimin la hadal iyo balaayo ha yeeshaan ama riya ha ugu keeno ama afkaarta ku soo dhacaysa iyo waswasatulqalbi ha ugu sheego siyaabo badan buu waxyigiisu u socdaa mid waasita le iyo mid biduuni waasitaaba wuu wadaa وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم با إلهي شياطين أوليادooday waxyoodaan hadaba ilaahay wuxuu leeyahay waxa shaytaanku sheegaya liyaj'ala ma yulqi ash-shaytaanu fitnatan lilladina fi qulubihim marad walqasiyati qulubuhum yay balaaye ku noqotaa waxa shaytaanku sheegayo asxaab alqulub as-salima ma waxba ma yeelo waxa shayaatintu akhriyaysa oo waayo waa vaccinated waa qof la talaalay haddaad biyo bugta soo gasho tiibay qabta adigoo tiibayda ka talaalan waxay u badan tahay inaanad adigu maxay waa laga talaalay qofka saliimul qalbiga ah iraadatu shaytaan waa weyn uu ka talaalan yahay ama kuwa marda alquluuba kuwa marda alquluubka markiiba waa fitna ku noqotaa baa leeyahay fitna lilladina fi qulubihim marad iyo walqasiyat iyo kuwa qalbiga ka qaba waa mawt alquluubku ku dhacay alkafaratu billah kuwa buka iyo kuwa dhintay warka shaytaanku fitnu ku yahay ba rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala hadaan iimaankaaga iyo qalbigaaga waxa ku jira xooganayn gaalada waxoogaa shubahaata markay isku soo dududo ay ku yiraahdaan waa falsafad cusub ama waa philosophy ama science ka sheegay kaanama rabbu samaawaat aan waxbaba ku sheegin dhalinyarada jaamacadaha iyo meelahan ku jirta in yaroo sheeka shaytaana la isugu toosiyaa isagoo durduriyo muran la taagan u baabad arki waayo waa quluub aan caafimaadku marka hore ku badnayn haday quluubtan caafimaadku ku badan yahay may gilgilanteen marka in yaroo dhibi ay haleeshaba may gilgilanteen saawgeed baa ilaahay wuxuu yidhi in lam yantahi almunaafiquuna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا انت بدن مركا كافرك يا مريض القلب ومنافق بدن يبقى إلهي قرآن كاسكحنا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم إلهي وحلي وحضرك يساقوا قلبك كبك أو وحي قالك الشيء مركبة وعرية سوما درك هذه يقول سياسيين تيو ولدن وحقاقا في إنجليزي قابرت يكون إن قال هذا بلوغة تاقلاي يعني هدانت مركو هره ويلكاغو مدن yahay wixii la afuufaaba markiiba hubantidaaba kugu yaraanaysa dadka badna maradkoodu maradu shubha uma badna shubuhaadkaas shukuukta waxa shaki gelinaya maradkoodu uma badna laakiin wuxuu u badan yahay maradu shahwaat nafs وإلهي وحليه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هوينك النبي وحي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إذن كنت دمر كلما متهدين با إلهي مرض إلهي كعبسطان تهو هوينك قولي النبي محمد وحي قبك سودك يجوغي هدنا كواس با إلهي وحكيري مركا وركا سيشي يسان سيشل شلعسان هاوشي يجينا
oo maxaa dhacaya si naxariis iskaga jirta haddaad u sheegtaan baa ilaahay yidhi fayatmaca aladii fii qalbihi maradun waxaaba idin hungurayn doonaa qaar qalbiga ka bukay waqulna qawla macruufa baa ilaahay yidhi ma aamusaha hadlina baa lagu yidhi maya hadlaa la yidhi laakiin waqulna qawla macruufa war macruufa dhaha ayuha alaxiba inta ugu badan le marda alquluubka marka qur-aanku uu ka warramayo munaafiqnimadu ku xidhaa laakiin munaafiqnimadu de waa laba oo munaafiq camaliya iyo munaafiq caqadiya baa kala jira munaafiqa camaligi waa qof iimaanka qalbigiisa ku jira iyo acmaasha ka muuqata iskhilaafsan iimaan baa qalbiga ku jira laakiin acmaal dunuuba buu wadaa munaafiqa caqadigiina waxa weeyaan dawaahirta waxaaba ku tustusaya acmaal fiican oo salaad iyo waxbaad ka arkaysaa laakiin qalbi ahaan buu u buka oo kufriga iyo gaalnimadu ay ku jirtaa waid yaquulu lmunaafiquuna wاladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura iimaanku yaqiin buu abuuraa qofku inuu rabbigii ku kalsoon yihi rabbigaa waxaad ku kalsoontahay markuu aadanaha iyo siduu u abuuray kaaga warramayo waxaad ku kalsoontahay markuu umamkii tegay iyo waxay ku dhaceen kaaga warramayo waxaad ku kalsoontahay waxa soo socda markuu kaaga warramayo janno iyo naar iyo xisaab iyo qiyaame iyo siraad iyo xawd inuu jiro markuu kaaga warramayo waxaad ku kalsoon tahay markuu kaaga warramayo haddaad raacday inuu kuu hiilinayo ama kuwa kale munaafiqiinta ilaahay wuxuu yidhi iyo wاladiina fii quluubihim marad iyo kuwa qalbigu bukaa waxay dhahaan maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa gur ilaah iyo rasuul waa nakadiyeenuun sawka gaal meel walba qabsaday maaha ayuha alaxiba qalbigu marka waa meel aynu u baahanay inaynu daymo iyo dhugmo fiican u yeelanno sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy tucradu اlfitanu calى اlquluubi kaalxasiiri cuudan cuuda iyo cawdan cawda iyo cawdan cawdan intaba way xarakeeyeen saddex xarako kala nooca acmaash fitanka waxaa quluubta loogu soo bandhigaa sida xasiirka cuudan cuuda salliga markaad ku jiifsato xabad xabad buu kuugu sawirmayaa kaasaa fasirka ay u badan yihin qalbi kasta oo cabba qalbi kasta oo cabba nugta sawdaa dhibic midow baa lagaga dhigaa qalbiga qalbi kasta oo diida fitanka oo xaqa raaca mid cad baa lagu dhigaa adduunku marka waa imtixaan quluubtaadu ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa qaar baa ilaahay yidhi saxaabadii kuwan waa kuwa ilaahay u imtixaamay qalbigooda maxay alla ka cabsi sidii loogu waday qalbi abyada yeesheen saxaabadii nebi moxamed sidii imtixaanku ugu socday ee gaal iyo cid waliba isugu tegaysay ee munaafiqnimo iyo wax kasta lagala hor yimi ay wax kasta u hortaagnaayeen rabbigood iyo rasuulkood u rumaysnaayeen ayuu qalbigoodu soo baxay maxay ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa facalima maa fii quluubihim kuwaasay noqdeen faanzala sakiinata calayhim idan waa qalbi abyada qolana fitno kastaoo ku dhacdaa siday inuu la dumayso maalin kasta uu dhan u dumayo maalin kasta inuu u dumayso ayuu marka dambe noqdaa maxay sidii jalxaddii la foorariyey xagga biyaha loogu soo kalkuusi mujakhiyan soo xadiidka ma ahayn sidii jalxad ama ashuun ama kuus sadbiyeed haddii la foorariyo ma waxbay qaadaa sidii kuusaddaa la foodiye mirbaadkaa buu nebigu ku tilmaamo kale inay noqonayso yacni waa qalbi xaqa ka fooraro aanu gelaynin quluubtu fitanku markuu ku bato iyo imtixaanaadku quluubta qaarkood way adkaysataa oo waxaasoo imtixaana iyadoo soo fowday oo caddaatay oo rabbigeed rumaysan bay ka baxdaa quluubta badhna way xidhantaa am calىa quluubin aqfaaluhaa qaar baa ilaahay yidhi quluubba qafilla ku go-an yihin qaar baa ilaahay yidhi kalaa bal raana calىa quluubihim maa kaanuu yagsibuun
waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi reer berberideed daxalka si fiican baa u taqaanin soo maaha waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi qalbiyadooda maa kaanuu yagsibuun qalbigu wuu daxalaystaa sidaad birta u aragta ay u daxalaysato sada'aasoo kale ku dhaca corrosion dad baa qalbigoodu uu qafilmaa wa qaaluu quluubunaa gulf waa daboolan yahay bay yidhaahdeen quluubunaa fii akinna qaar baa quluubtooda aanay waxbaba fahmin lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay ku tilmaamay qaal baa siday u sii weecsan yihiin quluubtooda ay gaadhaa in ilaahay weeciye markaa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum qaar baa quluubtooda waxay gaadhaa inay indhabeesho marka dambe waxba aanay arki karin araggu kan maaha aragga dhabta ahi waa ka xaq iyo baatilka lagu kala garto waa aragga qalbiga waa ka lagu kala sooco maxaa xaqah maxaa baatila haddaad xaqaba ka indhabeesho indhala'ani waa taade si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay fa innahaa laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur ishan maaha tab la beelaa baa ilaahay yidhiye waxa la beelaa isha quluubta laabta ku jirta baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida awgeed ayuha alaxiba haadihi alamraad waa tiro badanta waxaana layna faray amraadda dhammaantood inaynu iska daahirno inaynu quluubteenna nadiifinno inaynu quluubteenna dawayno inaynu caafimaadinno sida laynoo faray jidhkeenna inaynu u daahir yeello maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu calaykum in allaha yuxibu atawaabiin wa yuxibu almutaطahiriin طahaarada guud waa layna faray waxaa kaloo layna faray طahaarada taskiyat اlquluub khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim zake ka qaad baa ilaahay yidhi dadka zakadani maxay samaynaysaa tuطahiruhum baa la yidhi wa tusakiihim waxay ka daahir yeelaysaa nifaaqa bukhliga xumaanta waxaasoo dhan taskiya bay u samaynaysaa si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yuطahira quluubahum qolada gaaleed ilahay muxuu yidhi kuwaasi waxa weeyaan maxay kuwa aan rabin inuu qalbigooda maydho oo haddii la daahir yeeli waayo maxay noqonayaan inama almushrikuuna najas haddii la daahir yeeli waayo quluubtu waa najaasaysantay markaa ilaahay subxaanaه wa tacaala nebi maxamed iyo aalkiisii calayhi الsalaaةu wasalaam وridوaan الlahi عalayhim ilahi wuxuu leeyay inamaa yuriidu اllahu liyudhiba cankum الrijsa أhla الbeyt wayuطahirakum taطhiira ilaahay wuxuu rabaa haddaa ahlu beytka tihiin liyudhiba cankum الrijs uskaga in rabbi idinka reebo wayuطahirakum taطhiira idan waxaynu u baahannahay quluubteenna inaynu daahirno oo maxaynu ka daahiraynaa waxaynu ka daahiraynaa uskag tiro badan quluubta maxaa nadiifiya caafimaadiya ilaahay kitaabkiisu inoogu sheego waxaa la yidhi qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum وashifaaء lima fi الsuduur wahudan waraxmaة lilmu'miniin xagga rabbi waxay idinka timi baa ilaahay leeyay mawcida waano iyo washifaaء lima fi الsuduur laabtu waxay ku caafimaado laabta maxaa laga caafimaadinaya waxa laga caafimaadinayaa aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxaa laga caafimaadinayaa shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxaa laga caafimaadinayaa shubuhaat washukuuk waxaa laga caafimaadinayaa shahwaatu nafs waxaasoo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay washifaaء lima fi الsuduur laabtuu caafimaad u yahay noloshoo dhan buu caafimaad u yahay laakiin waxaa laynoo tilmaamaya laabe hadday caafimaaddo nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara wayashfi suduura qowmi mu'miniin wayudhib gayda quluubihim ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa quluubtu inay caafimaaddo in xumaha laga saari karo
waxa ka saaray caafimaadiyana inuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa. bukaanka ku dhaca quluubtana asbaab buu leeyahay keenta inay bukooto. yahuud mar bay ahaayeen afdal caalamka dadka u fadli badan leh socaynkaa maaha cahdigii nebi muuse wafadalnaakum imsaa qur-aanka ilaahay fadli ugu sheegay yahuudaa ilaahay jinsi ahaanna ma hadad liita. soomaalidu waxay dhahaan laandheeraanna iyo reer baanu ka soo jeednaa. reer hadday cidi ka soo jeeddo yuhuudda ka soo jeedda, waayo aabbahood waa israa'iil, waa nebi yacquub. nebi yacquubna waa ina isxaaq, isxaaqna waa ina ibraahim. waa niman nebiya ku abtirsada, saddex nebi kee ku abtirsada. yacquubna dee yuusuf iyo walaaladii ambiyada kaluu sii dhalay. nebi ibraahim bay ku abtirsadaan oo intaasoo nebi weliba kaga abtirsadaan. laakiin xaggay dhibtu ka timi? ilaahay wuxuu leeyahay fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya. fabimaa naqdihim miihaaqahum, burintay buriyeen ballanka ila galeen baa ilaahay leeyahay. towxiidka iyo nebiyada raacistooda waa ballan ilaahay lala galay. laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah waa ballan. waa ballan aadan la gashay isaga mooyaane aan cid kale caabudin, cid kale ka dambaynin. waddadaad cibaadadooda u maraysaana inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam. waa ballan aad ilaahay la gashay. iyagu ballankay buriyeen baa ilaahay yidhi fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya baa ilaahay yidhi. burintay buriyeen ballankay alla la galeen daraaddeed ayaa ilaahay naxariistii looga fogeeyey, qalbiyadoodana looga dhigay kuwa aan nixin oo digigaxan. yuhuuddu iyo waxay samaysaan tiviyada waa ka aragtaan. aadanaa ugu qalbi adag, caruur dumar cid walba bam ku garaacda, gubta, waxay doonto samaysaa, cidna aan uga cabsanin, ka digigaxanin. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa. idan ayuha alaxiba, quluubta waa bukootaa, waxaana bukaysiiya gaalnimada iyo kufriga, waxaa bukaysiiya macaasida, waxaa bukaysiiya siday dunuubta qalbiga degtaa u kala waaweynti. oo maalan waxaynu u baahannahay acmaal اlquluubka la tilmaamo. waxna waa wax lagu nooleeyo qalbiga, ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa, qur-aanka akhriskiisa, awraadda la imaadkooda, salaadaha iyo cibaadaadka iyo waajibaadka lagu faray samayntooda. waxaasi qalbigay nooleeyaan. waxna waa laga saafi yeelaa qalbiga, oo ugu horeeyo riyaaga iyo sumcada. riyaagu waa camal qalbiya. axaadiista nebigu waxay tilmaamaysaa dadka naartaba loogu horshidayo ahlu tawxiidka inay kuwaasi yihiin. saddexdii naarta ugu horreeyey awal man tusacaru bihim الnaar buu nebigu yidhi. saddexda ugu horreeya naarta lagu shidayaa waa saddex qalbiga ka bukooday. maxay sameeyeen? acmaal saalixa, laakiin qasdiga, iraadada, cidday acmaasha saalixaa wax kaga rabeen baa qaldantay. oo waa maxay? waxau nebigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam, ka ugu horreeya naarta lagu shidaa waa mid sheekh ahaa oo qur-aan akhris badnaa oo waday. dabeetana waxaa la yidhaahdaa wixii lagu baree nimco aha maxaad ku samaysay? ilaahu waan akhriyey buu yidhaahdaa. habeen iyo aanaa alleyl wa atraaf annahaar baan qur-aanka akhrinayay. waxaa la yidhi waxaad u akhrinaysay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim iyo waa qaari iyo waa nin wax yaqaana. dayntiina waa tii lagu yidhi, dadku kugu yidhaahda hebel waa nin cod macaan iyo waa sheekh iyo waa wadaad aan lagaga daba dhufan iyo intaana horaa lagu yidhi. khalaas cinda allaahi waxba kaama xigaan baa la leeyahy. markaa naarta gal baa la yidhahdaa. intaasaad awalba doonaysa intiina heshaya. mid baa yimaada yidhaahda waan jihaadtabay, ilaahu u dartaa baan u dagaalamay, waa kan. waxaa la yidhaahdaa waxaad rabtaa in lagu yidhaahdo hebel waa geesi iyo xaggu kaa xiga, nin baa kaa xiga iyo dhankiisa lagaaga soo dhici maayo. intaasaad rabtay, intiina waa lagu yidhi baa rabbi yidhaahdaa, ee adna naarta gal.
mid wax bixiyeyna isna waxa la yiraahdaa waxaad rabtoon in lagu yiraahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan deyntiina lagu yiri isna naarta gal idan waa acmaal alqulub waxa amalka ku kaaga dhiga wax qiimo leh hadduu amalka qalbigu xumaado oo ama riyaa galo ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo isafuufid iyo hal lagu sheego iyo miyaanan hebel ahayn aad duddo hadday dadku magacaaga hore u sheegi waayaan iyana waa la midoon waxba ka waa hal bacaad lagu lisaday Soomaalidu sheegaysay waa aana cid la ku dhacay saawgeed amraad alqulub waa khatar gaalima haweenaato waxa ku xigoo dhan ku soo dar waxay u baahan tahay marka inaynu in badan dadaalo oo dadaalkeenu noqdo inaynu naftan u xidhxidhno sidii aynu u nadiifin lahayn siday rabbigeed cibaadada ugu khaalis yeeli lahayd siday uga bixi lahayd kibir iyo isla weyni iyo cujbi iyo riya iyo wax la mid oo dhan siday tawaadu iyo ikhlaas iyo acmaal suuban ay u samayn lahayd acmaal alqulub waxa ka dhiga uu nabigu leeyahay dirham ba 100,000 dirham ka fadli bata hal dirham iyo 100,000 dirham qiyaas waxay isdhaafiyay waa amal alqalb bal acmaal alqulub waxa keensada la ilaaha illa allah qaar lana inay naarta galaan qaar la ilaaha illa allah iyo kaliyan inay ku badbaadaan nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ahlu tawxiidka qaar kamid bisabab macaasihim inay cadaabka galayaan آخرka marka la soo nadiifiyay inay ka soo baxayaan jahannamiyiin baa la yiraahdaa kuwa ahadiisu jahannamiyuunka ku soo arooray laakiin waxa ahadiistu kala sheegtay mid la keena maalinta qiyaame oo dabeetana sijilaadkiisii dunuubta hal tusiya kaama samaysa oo wada qirta la yiraahdaa wax kalo ka maqan miyaad garanaysaa xasanaad aad samaysato ka maqan la ya rabbi buu yiraahdaa dabeetana waxa la yiraahdaa sijil bataaqa baa la keenaa buu xadiisku tilmaamaya hal bataaqad waa kaad baa la keenaa ugu taala maxay tawxiidkiisi la ilaaha illa allah diisi kasba ka fadla saara baa la yiraahdaa inta kale oo dhan ka xoog badata qaar kale oo la ilaaha illa allah xadiistu waxay sheegtay inay naarta galeen kana la ilaaha illa allah diisi inay wixii kale oo dhan ka xoog badatay culimadu waxay dhahaan waa ma fi alqulub iyadoo afka la ilaaha illa allah laga wada leeyahay ayaa haddana qalbiga waxa ku jira aanu islaakayn iimaanka qalbiga ku jira la ilaaha illa allah dan ka yeersiiyay ayaa islaakayn nabiga alayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyo ximar la oran jiray ayaa dhowr goor khamra lagu soo qabta dabeetana maalintii dambe la keenay mid baa markaa wuxuu yiri saxaabadii kamid ah dee uu maaga waxaan buu maalin walba khamra lagu keenaya waa lagu garaacayaadi nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri war shaydaanka ha ugu kaalmeynina innahu yuhibbu allaha wa rasuulahu nabigu ku yiri alla iyo rasuulkiisii buu jecel yahay yani shahwaatu nafsiga waa ka xoog bateeno ila al'aan waxaan khayr ku jirin buu wadaa laakiin haddana waxa la tilmaamayaa ma fi alqulub inuu qiimo samaynayo sida sax ah laakiin waxay tahay inaanay iskhilaafin ma fi alqulub iyo waxa amalka ka soo baxaya inaanay iskhilaafin waxa qalbigaaga ka buuxa inuu noqdo waxa hogaamiya acmaasha aad samaynayso loo baahay waxaan darsiga ku soo koobayaa waa waqti kulul waa joogtaan magaalo kulul waa joogtaan in la xambaari karo baan rabaa anay anfacada inaan idin sheego oo ah waxaynu u baahannahay inaynu dib qulubteena u fatashino qulubteena inaynu dib u fatashino baadhno oo aynu nadiifino taahir yeelno ka taahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka taahir yeelo waxa laaliyo waxa mubtilaatul a'maal waxa amalka buriya adigoo shaqeynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanay salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaanallah marka ayuha alahibba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaar la siiyo oo aad xisaabtanto
oo tidhaahdo qalbigaagu intee xaasidnimo ku jirta intee qilli ku jirta intee colaad ku jirta intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intuu rabbiga weynaynaysa aan wax kale oo dhibi ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu sameeyno sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin فتاوية ده علماء ايدين ما صح الدرس يقول صابسون بدويدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحنو يديننا علماءنا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون يا شيخ المس الشيخ يحيى الشيخ إبراهيم وسنا القفردي والشيخ صور راعي إن إلهي ميزانك حسناتك وقدره سفر كان دheer inoo soo galeen waqtiga ay soo bixiyeen waliba xilliga kuleelka ah culimadu had iyo jeer la berbere waxay u jireen waqtiyada qaboobaha laakiin maadaama ay culimadu inoo yimaadeen waqti kulul ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu kuleelka jahannamo maalinta qiyaamaha ka ilaaliyo waana muhiim markasta inaynu culimada aynu dalbanno kareer berbera ahaan si markaasi aynu faa'iido fara badan oo ku tacalluqta diinteena suuban aynu uga helno culimadana insha allahu tacaala waxaynu ka codsanaynaa mar iyo laba iyo saddex iyo wax ka badanba reer berbera aad bay u baahan yihiin xaggiinina waa soo eegayaan inaad aada iyo aad nooga warhaysaan annaguna insha allahu tacaala waan idin soo dhoweyn doonaa si fiican baa insha allahu tacaala idin qaabili doonaa weliba kuleylku xilligaas kuleylka magaalada berbera uu yar dhib badan yahay xilliyada qaboobahan insha allahu tacaala idinla eegan doonaa waqtiyada faraha badan insha allahu tacaala kulley su-aalo tiro badan oo waxna dersiga xidhiidh la leeyihiin waxna ka baxsan yihiin ayaa halkan lagu soo gudbiyey su-aalahaasi way isku dhex jiraan qaar isku mid ah qaar kala jaada qaar aanu faham weynay iyo tiro badnaan la socota marka insha allahu tacaala maadaama waqtiguna waqti kulul iska yahay waxaynu ka gaadhsiin karno ee aan fahmana insha allahu tacaala ayuunbaa sheekha u gudbi doonaa su-aasha ugu horeysa waxay leedahay sheekh ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aada u mahadnaqdaan waan idiin siyaadin kulayl baan ahaye kulaylka hadda ilaahay ugu mahadnaqo ma noo siyaadinaya waayahay su-aasha labaad waxay leedahay assalaamu calaykum marka hore sheekh waxaad nooga jawaabtaa maxaad kula talin lahayd ardayda jaamacadaha ka qalin jebisa ayaa iyagoo aqoonta diintu laga yaabo inay qaarkood ku yar tahay dhammaantood maaha inay haddana aqoon-yahana sheegtaan labadaas su-aal maanta sheekha gudbinaya waxaan jeclaan lahaa su-aaluhu inay ku koobnaadaan darsiga aan ka hadlay amro kooban kulaylku waa min fayxi jahannam
ilaahayna waxaan ka baryaa inuu fayxu jahannama idiin kordhin. ilaahay wuxuu tilmaamay walain shakartum yani calaa nicmaa'ihi. ilaahay kelimatu shukr iyo kelimatu lxamdi baa kala jira. xamdigu ilaahay afcaashiisaa lagu xamdiyaa, lagu ammaanaa. idan wax kastoo xagga rabbi ka yimaadaa inay xikmadi ka dambayso ay sameeyiin baa ilaahay loogu mahadnaqaa. alxamdu lilah calaa kulli xaal baa la ydhaha. ama kelimatu shukri haddii laga hadlo waa cala nicma faqad. walain shakartum marka la yidhaahdo waxa weeyaan haddaa ku shukri naqdaan wixii aan nimcaydi siiyey. dee haddii kulaylku qaybo ka mida nimcayu idinku yahay waa dee idinkaa ka warrami doona. kolley timirta iyo waxaas isaga ku bislaataa meelaha timirtu ka baxdo. laakiin aayaddu waxay sheegaysaa uun haddii nicmooyinka alla idin siiyaa ku mahadisaan ilaahay inuu nicmooyinka idin siyaadin doono. wallahu aclam. aqoon-yahanku aqoon iyo yahan baa la ysku daray. qof aqoon oo dhan yahani ma jiro isagu. qof kastoo bini aadamina waa aqoon-yahan, inbuu yaqaanaa. qofba inbuu yaqaanaa. marka hadduu leeyahay de scholar baanahay, erayada reer galbeedka waxaad moodaa inay ka kooban yihiin kan ballaadhana innagu aynu samaysanay. innagu kan cusubee la sameeyey aqoon-yahanka la yidhaahda ee tarjamada soomaaligii waa eray aada u ballaadhan. aqoon oo dhan inuu yahan yahay buu sheeganaya qofku. laakiin qofku waa scholar, waa qof waxa uu bartay yaqaana, laakiin wax kale ma yaqaano. waxa kale wuxuu ka yaqaanaa inta rajulka caamada ee suuqa jooga uu ka yaqaanada. maalan geela intaad ka taqaanaa, inta un dee qofka berbereska jooga ka yaqaano maad ka maqashay soo maha. geel jiru isagaa kaa aqoon yahansan markay geel timaado. isagaa yaqaana geela iyo sida loo dhaqa iyo sida loo maalo iyo sida loo xergeeyo iyo sida loo hagaajiya isagaa kaa yaqaana. idan aadanaha qof waliba waxbuu yahan yahay, waxbuu yaqaanaa, laakiin fieldkiisuu yaqaanaa. markaa dee hadduu fieldkiisa uu si fiican marka hore u sugay aanu de ka mid ahayn kuwii boqolkiiba kontonka kusoo baasay, dee waynu odhanaynaa fieldkiisaasi uu ku yahay aqoon-yahan. laakiin tan ballaadhana la yska sheegta maaha. yani waxaad moodaa in la rabo dadka in lagu afjabsado shahaadadahan iyo jaamacaadka laga qaato, oo nin wax yaroo kooban soo bartay uu dadka isaga dhigo wax walba inuu yahayahay oo wax walba isagoo ka jawaabayo la ydhaha waa aqoon-yahano. war aqoon-yahan intaasaad ku tahy, intaa yare aad meesha ka baratay iyo wixii la halmaalaad ku tahy. amaa nolosha kale dadkaad kala simantay. nolosha inteeda kale ugama aqoon badnid dadka. wallahu aclam. su-aasha labaad waxay leedahay sheekh sideen isaga daweyn karaa xanuunka loo yaqaano istuska? xanuunka istuska ahi culamadu waxay dhaheen dawooyinkiisa waxaa ka mida kow ilaahay oo la baryo. waa marka koowaad. waa laba. marka labaad hawaabka alloo aada yaqiinsatay inuu ka wenyeyn karaad dadka ka sugayso. dadka maxaad ka rabtaa? inay ku ammaanaan soo maaha. in fowqa 7 samaawaat lagaa sheego iyo in 4 kula midoo madmadow ku sheegto keeroon. yacni halkaad rabtaa in lagaa sheego. ilaahay subxaana wa tacaala kuwa caabuda ee isaga ku dhodhow ee u cibaadaysta min fowqi 7 samaawaat buu ka sheega. bale nebigu wuxuu tilmaamaya jibriil buu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa hebel waan jeclaadee jeclow. jibriilla ahlu samaawaat buu la hadlaa wuxuu idhaha hebel allah jeclaadee jeclaada. dabeetana kuwa dhulka ayaa loo soo daadejiyaa fajacala fii quluubihim almaxaba. dadka alla jeclaysiiya. haddaad markaa xataa aad ku xisaabtamayso sheeg sheega, war in xagga rabbi lagaa sheeg sheegaabaa ka weyn in xagga bini aadamka lagaa sheeg sheego. waa midda labaad ama saddexaad baan idhaahnana khabii'a yeelo. acmaal aad qarsato oo aan cidi kula ogeyn. walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa jiifa buu eegay inay caaisho huruddo. caaishana waxay isaga dhigtay sidii oo wax hurda. dabeetana nebigu intuu kabihiisa qaatay buu ayar iska baxay. caashana
warkii dumarkuunbaa madaxeeda ka guuxa waxay istiri wallahi waa kaa guureeyey guryihii kala qabtay iyana kabahay ka daba qaadato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu socday siduu socdo xabaalaha tegey dabeetana xabaaluhuu soo duceeyey aakhiru xasuusanaya innaga halka hurdadu inoo macaantay ee salaada subax marka lagu adimo aad leedahay cabaar baan sii yara jiifiye horta qaamadan ka gaari doonaaye faatixada dambaan wadaadku qiraa'o dheeriye markuu bartanka marayaan soo kici doonaa u leedahay maxamed saqda dhexe kaco ayuu xabaalaha tegayey qofka xabaalaha isdul taagaana waa maxay waa haadimu ladaat buu xasuusanaya geeri iyo godka kuu dambeeya maxaad adduun istusin halkanaa kuu dambayseen dabeetana nebigu markuu is yidhi soo noqo ayay caaisha aragta way soo hor carartay nebiguna uu soo daba tallaaba dheereeyey iyana inan yar bay ahaydoo xoog bay u carartay dabeetana gurigiibuu ka soo dabagalay iyadoo isduubduubtay laakiin de waa qof ordaya hinraagaysa maxaa laabtu kula karaysaa buu weydiiyey caaisha markaa maxaad la hinraagaysaa adigu runta iska sheegtay markaasi oo way u sheegtay nebiga calayh salaam yacni xadiidka inta caaisha uma soconno waxaan u soconnaa inta nebiga oo ah saqar dhexe inuu kacayey oo uu kacayay inuu xabaalo tago ilaahay xasuusto aakhiro iyo waxa dambeeya xasuusto muslimiinta halkaa ku jirta ee camalkoodii xidhmay uu u soo duceeyo idan khabii'a nebigu wuxuu tilmaamay qof sadaqa intuu la guureeyey saqar dhexe gabadh dumarka xunxuna gacanta ka saaray oo subxii la yidhi gabadha xumayd ee heblaaye ahayd midunba xalay lacag kula kufay dabeetana wuxuu is yidhi mala taasi waa kaa yaro rabshoontay haddana habeenkii dambu la guureeyo tuug caanoo la yaqaanay unbuu gacanta ka saaray subaxunbaa magaalada waxay yidhaahdeen waar tuuggii hebel ahaa xalay midunbaa u dhiibay waa la guureeyey haddana markii dambe wuxuu gacanta ka saaray magaaladaba taajirkeedii iyuu xoolo badnaa dabeetana waxaa loo sheegay in laga aqbalay ducaa maxaa la yidhahdaa cibaadadiisaasi uu qarsanayey lacallaha kuwana inay u noqoto wax ay dembigaba kaga dhowrsadaan waxaan uga jeednaa markaas ninkani waxbuu bixinayey haddana wuxuu rabay inaan la ogaanin isagoo wax bixinaya ayuu haddana wuxuu bixinaya inaan la ogaanin saa daraaddeed buu la guuraynayey marka culammadu waxay idhaahdaan waxyaabaha daweeye riyaaga waxaa ka mid inaad khabii'a yeelato acmaal saalix oo aada qarsato oo aan cidina kula ogeyn waa sababta loo yidhaahdo marka faralka laga yimaado salaad la tukado dee salaatuleilka u fadli badan baa la tilmaamaa bacda almaktuuba waayo salaatuleilka waa midaan cidinaba ku arkaynin raggii waaweynaayo culammada ana qaar baa laga sheegayey gurigiisa weligii lagama ogaan inuu salaad tukado iyo kala toona islaamtu intay soo jeedo weligood may tukan jirin baa way iska eegi jireen markay gamaado inuu ilaahay la keliyeysto nebiguna waa kii tilmaamay toddobada aakhiro inuu ka mid yahay man dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah mid ilaahay isagoo keli xasuustay oo dabeetana ilmeeyey marka waxaan leenahay riyaagu waa xanuun xun laakiin waxaa lagu daweeyaa tawxiidkaagaasi oad khaalis ka dhigato rabbiga iyo hawaabkiisa aad yaqiinsato xagga rabbi in lagaa sheego aad garato inay ka weyn tahay xagga bini aadamka acmaashaadoo intaad qarsan karto mar haddaad xanuunkaba qabto aada qarsato oo toddobadii waxaa ka mid ahaa mid aan gacantiisa bidix ogaanin waxay bixiso maxay gacantiisa midig yacni waxa weeya waa nimaan xisaabin markuu wax bixinayo hadaad markaad bixisaba intaad soo saarto dolarka reebta isaga kunka ama 500 ka dhiib iyo haddaad jeebkun gacanta geliso aad dhiibto dee ta bidix ma oga ta midig waxay bixisay haddaad uun qofka gacanta u geliso u dhiibto haddaad see uun dee tiriso insha allah iyana sadaqa way noqone laakiin dee tan lama nooca wallahu aclam aad buu mahadsan yahay sheekhu su-aasha kalena waa su-aal xidhiir la dersiga wuxuu leeyahay saa'ilkani sheekh waxaad ka warantay xanuunada qalbiga ku dhaca iyo bukaankiisa laakiin sidaan ku ogaan karaa aniga qalbigaygu inuu xanuunsan yahay sidaan isaga daweeya maqaayistii uu qur-aanku ina siiyey unbaad ku qiimayn doontaa salaaddu ma kula macaan tahay cibaadaadku ma kula macaan yihiin macaasidu ma kula fool xuntahay qalbigaagu marka xaqa la sheego saxaabadii maxay isku qiimaynayeen
xadiidkii naafaqa xandale muxuu sheegayey saxaabigii gurigiisa tegey ee intuu gurigiisa joogay arkay inaanu la mid ahayn markii uu nebiga la joogay ee abibakar u yimi ee uu yidhi xandalow iska warran wuxuu ku yidhi naafaqa xandale wuu munaafaqoobay mar waxaad ku hadlaysaa faalxune maxaa jiro wuxuu u sheegay markuu nebiga la joogo siduu wacdiga ugu muraaqoodo iyo qalbigiisu u soo jeedo iyo markuu gurigii tago siduu wuxuu ilaabaa inaanay isku mid ahayn dabeetana abibakar wuxuu yidhi dee taa naba nagu wada dhacdaa ina wadi dabeetana nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam nebiga qadiyadii loo sheegay marka ay la joogtaan sidaa tiin haddaan mar walba ahaan lahaydeen buu nebigu ku yidhi malaa'igtaaba waddooyinka iyo furshaanta korkoodii idinku salaami lahayd laakiin saaca wa saaca soomaalida barh ba ka dhigatay saaca fii suuqa la gala iyo saacadda masaajidka la gala ma aha ee waa saacad aad rabbi gaar isku noqotaan oo cibaadadaadu kor noqoto oo aad iimaankaaga xisaabiso iyo maanta maxaan sameeyey maanta acmaashaan qabtay maxaa khayr ahaa maxaa shar ahaa iyo saacadood wixii mubaaxa ahaa iyo xalaashaadii iyo cunnadaadii iyo reerkaagii iyo wixii alla kuu baneeyey xilku kaa saara aad ka shaqaysato idan qalbigaagu inuu buko iyo inaanu bukin qur-aankan ku eg acmaasha qur-aanku ammaanay adiga agtaada maxay ka tahy acmaashuu maagayse agtaada maxay ka tahy shubahaadku ma ku raadeeyaan marka waxoogaa laysugu kaa soo toostoosiyaba ma kula macaanaataa mise qur-aanka iyo dhegaysigiisaa kula macaan waxaasoo dhamme waa waxaad ku qiimayn karto miyaad bugtaa mise waad caafimaad qabtaa dee adduunna waad joogtaayoo ogsoono oo laystayn maayo kolba dhan baa loo ciirciirayaaye isku day xagga inaad xagga in badan inaad u ciirto wallahu